السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ogaanaynaa macluumaad ku saabsan cunuga yarka caalamka ka yaabiyey ee loo yaqaan Robin Powell. yarkaas oo u dhashay dalka Mareykanka gaar ahaan wuxuu ku dhashay gobolka Texas. waxa uu ka soo jeedaa qoys Indiana, asaga waa Indian Mareykanka qolada loo yaqaan. waa cunug ku caan baxay hacking cyber security ku caan baxay. waa nin aad active uga ah cyber security. wuxuuna isticmaalaa deviceska inuu ku jabiyo toy devicesyada kala duwan inuu isticmaalaa toy inuu ku jabiyo. waxaan arkaynaa marka macluumaad isaga ku saabsan oo hadda sidaad u aragtaan cunugaas yarka ah aad arkaysaan. marka waxaan ogaanaynaa cunuga yarkaad arkaysaan wuxuu isticmaalaa toy, wuxuu hacking ku sameynayaa droneska, wuxuu hacking gareynayaa. waa cunug aad u soo jiitay indiya caalamka, ninkaas oo aad u firfircoon 12 sano jir ah, aad u yar, qoyska Indiana ka soo jeeda. wuxuu jibinayaa marka inuu isticmaalo bluetooth, inuu isticmaalo device-yada inuu bluetooth u diro, inuu wireless public wireless isticmaalo, saas uu ku jibiyo macluumaadka dadka ku helo. asoo hadda isticmaalaya graph inta nooga muuqda ay tahay graph uu isticmaalaya ay tahay Parrot Linux, marka operating system-ka loo yaqaano hadda sida inta nooga muuqato. nin aad ugu baxay dhinaca security inuu jibiyo. waa cunug aad u yar sida hadda aad u aragtaan oo active ah, qoys Indiana ka soo jeedo. cyber security-ga internetka, macluumaadka internetka, qof walba wuxuu helayaa macluumaadkiisa si ugu fudud ee asaga uu rabo. halkan waxaan ku barayaa sidii macluumaadka cyber security-ga loo isticmaalayo iyo sidii loo jibinayo. waxaa hadda la tusinayaa macluumaad ku saabsan sidii wax loo jibiyo. ama isla eegna hadda marka ninka dooniyaha kale waxa laga warramayaa ninkaas uu jibinaya. hadda waxaad aragtaan platformka ama computerka xaggaas kaga muuqda siduu yahay. waxaa loo sheegayaa dooniyaha waxaa loo sheegayaa sida loo jibinayo. hadda waxaa la tusin doonaa account fake in loo jibiyo, hortiisa lagu jibiyo hadda iyadoo la isticmaalayo public wifi ama sida taqaana wireless. hadda wuxuu ninkan ku jiraa environmental wixii nugul inuu isticmaalo inuu jabiyo. waxaan isla arkaynaa marka hadda wuxuu wadaa shaqadii. hadda waxaa la tusin doonaa Twitter fake loo dirayaa. wuxuu ku sameynaya inuu hacking gareeyo. wuxuu isticmaalaya public wuxuu dirayaa uu ku soo nugta galowga leeyahay saaxiib attack lagu sameynaya marka la jibinayo. hay'ad dambeysho marka waxaana baranaynaa barnaamij ku saabsan asagana toyga networkiisa uu isticmaalaya cunuga yarka ayada toygan uu muuqdo. toygan qof walba wuxuu diraya ayada bluetooth ahaan message aan ugu dhacay marka uu dhaco kadib markuu dhagsiyo waxa soo dhacaya dhammaan macluumaadka uu asagu leeyahay. sidaas uu ku hacking gareynaa, sidaas uu ku ogaanay macluumaadka qofka mobilkiisa ku jiro. haddii computer ku isticmaalaya device-yada isku gudbinaya inuu wireless ahaan oo gudbo oo isku hel macluumaadka inuu ku helo balkigi. waxaan tagi doonaa inuu drones xitaa la hacking gareynayo. waa isla arkaynaa marka